wuxuuna igu dhagay dhuunta isagoo i ceejinaya wuxuuna igu dhahay duko duko ilaa 3 jeer waan qeyliyey wax walba ayaan sameeyey ilaa aan ka dhaho waan tukanayaa markaa ayuu iga fuqay من وحيها عبر حوت معناها وكذا بهادي نبينا قد سطرت قصص روائعها يشع سناها طوبى لمن فهم المقاصد واستقى في قصة هي للمكارم تنتقى أن الحياة تجارب ومواعظ gabar ka mid ah saaxiibada igala socda dhanka baraha bulshada ayaa waxa ii soo gudbisay qiso oo ah mid iyada ku dhacday waxayna ku bilaabanaysaa sida tani walaal waxaan ahaa gabar aan tukan jirin waqtiyada salaada waxaan jiray xiriirkii noo dhaxeeyay aniga Allah habeen walba waxaan ku riyo jiray riyooyin xun masas ayaa ii cuni jiray ma ogi sababaha aan habeen walba u riyoonayo anigoo sidaa u yaaban ayaan habeenada ka mid ah waxaan ku riyooday nin gashan dhar cad ayaa ii imaaday wuxuuna igu dhagay dhuunta isagoo i ceejinaya wuxuuna igu dhahay duko duko ilaa 3 jeer waan qeyliyey wax walba ayaan sameeyey ilaa aan ka dhaho waan tukanayaa markaa ayuu iga fuqay isla subaxii waxaan bilaabay inaan tukado waxaan tukan jiray 4 salaadood oo kale ah duhur casir maqrib iyo cisho halka salaad subax aan tukan jirin markii aan sidaa u waday maalmo ayaan waxaan ku riyooday anigoo dhintay naftii iga baxday oo qabriga liiga soo saarayo anigoo lafa ah runtii waan farxay saan u farxay weligeyga uma farxin waayo waxaan helay fursad aan ku tukado hurdadii ayaan ka kacay waxaan bilaabay in salaada subaxan tukado markii aan tukaday waxaan helay jawi farxadeed walaal ma isweydiisay ma mu'min baad tahay mise munaafiq haddii aad rabto jawaabtaasi waxaad ku ogaan kartaa sida aad ku tahay salaada subax runtii waan tayacnaa salaad subax waana ka seexanaa dhallinyaradeena annagoo habeenkii ku dhafreeno wada sheekaysi inaan maantoo dhan qadka ku jirno haddaba walaal aan ilaalino salaadaha si gaar ah salaada subax waad ku maasan tahay daawashadaada haddii aad daawatay muuqaalka waxaan kaa codsanaynaa inaad la garayso sidoo kale la wadaagto asxaabtaada si aan u helno asxaab sida adigoo kale fikirkaaga qaybta hoose faallada nagu soo gudbi waxay noo tahay dhiirigelin aad u weyn ramadaanul kariim